بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جنالك يوتيوب كأسلح أبسافي وحان إذن سو قدبنا يا قصدي نبي لود قصدا انت أنا قد قلين فضلا سبسكرايب سار جنالك سيأيكو سو قاران مخالدة أن سو قليو كامبانيا كتاوة سيات وقنا خطو خفكو غهريو أو داوة شرده سيات ولو وذاكتو أصحاب تابا مركي أو ملك الجبريل أو هدلي أو أصدهي قالوا يا لوط أصدهي قالوا وحيدهين يا لوطو إنا رسل ربك مركاس أيا قلبي جيس خبوبي نبي لوط عليه السلام مركي أو دهي جبريل أنا وحان هاي رسل أو إلهي نوسو دري أيان هاي أس دهي وحالو دهي أديك أيالو دهي إنت كبح عاو كبح أيالو دهي قبل كاغا كبح أديك إيو قبل هاغا وضا إيو إنت أو كراعسن كل كبحة يعني مركاد بحدين أسدهي بخدع من الليل إلا إيو يعني فجرك يعني مركي فجر سودوي هاي وحسدهي جبريل خوم كاغا لمان تودي وان هلاقينا ولا يلتفت منكم أحد خفني قدال ها أسو جساننا سيدات أسعتين هرتين فيريا هرتين لأسعودا إلا امرأتك أيالو دهي حاس كاغا كتك أيالو دهي حاس كاغا هودن أيالو دهي نبي لوط أديغا عرورتادا إيو إنت كراعسن بلدك كبحا بلدك وان هلاقينا أسدهي جبريل عليه السلام قدالها أسوفيرنا محالو دهي حاس كاغا هودننا حاس كاغا هودنن محالو دهي حاس كيسا رفيان أيي إهيد يعني خوم كدن أيالا جرتي نين كيدا واكسو هورجيستي نبي لوط واكسو هورجيستي وحي غوريغيدا كدعايو qoomka u geeyay jirtay saddexdan oo rasuul ay imaadeen bini aadam isku soo dhigeen iyada ayaa bixisay banaanka iyada ayay soo sheegtay marka waxa loo dhahay subaxa waa soo dhow yahay ayaa loo dhahay ee subaxdii waxaan yeelina asdahay jibriil alayhi salaam dhulka waan halaagina asdahay halaag ayaan ku sameeynaa ee ka baxa ugu dambeyntii waa ka baxay gobolka nabi luut alayhi salaam asaga iyo gabdhihiisa caruurtiisa iyo inta oo ay raacsan way ka baxeen wadanka maxaa dhacay gobolka way ka baxeen waa la halaaga jibriil alayhi salaam markii qolka oo ku soo baxay baalashiisa ayaa la soo baxay qoomka indhaha ayaa ugu dhiftay dhammaantooda qoomka dhan waa indha ay beeleen markii indha ay beeleen ka bacdi آية وحودها فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مركا آية وحوايه مركي أو خوم كان له لاغايي إله سبحانه عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود إله سبحانه عز وجل عرك وحاسك كيني شمبيرها سيأيسو ديين لكحان أو دب أو نار أو مدمذوة لكحان تاس أيا لغو بابئيي أي خوم اللوط لكحان تاس أيا لغو بابئيي لكحان أو دبجوك عد مذو قدود أو اسكو جيران سيدي أو روبكي كالو عمان انت دكحانتا لوgu baabi'inin malak jibriil alayhi salaam ko baalashiisa ayaa furay waa malak indaha ayaa ugu dhiftay dhamaantooda way inda beeleen ka bacdi ilaahay waxa soo diray shimbirahaas oo dhagax ay ku soo tuureen ka bacdi ilaahay subhanahu azza wa jalla waxa yeelay wixii dhulka oo hoos ku jiray kor ayaa soo marsiyay wixii kor oo fuulayni dhulka hoostiisa ayaa ilaahay subhanahu azza wa jalla asgeeyay ilaahay waa awoodis ayaa tusiyay qoomuluut waa la halaagay sidaas ayaa lagu halaagay qoomuluut jibriil mikaa'il israafiil ayaa la soo diray waa la halaagay wadanka dhan intii la halaagin nabi luut ka bax ayaa loo dhahay adiga iyo inta ku raacsan way baxeen ka bacdi qoomuluut inta ay joogaan waa indha beeleen indha beel ayaa loo keenay ka bacdi ilaahay waxa uu soo diray shimbir
oo dhagxaan madmadow ay wadaan gaduud oo dhagxaan ilaahay samada iska keenay kabacdi qoomuluud haddana dhulka ayaa ilaahay la gediyey wixii dhulka oo hoos ahay kor ayaa la soo saaray wixii kor ahaani hoos ayaa la geelay qoomuluud iyo raadkooda dhan ilaahay subxaana caza wajalla waa baabi'iyey walaalahayga qoomuluud cadaabtaas ayay muteysteen ee halis ka jiro qoomuluud waxay sameynayeen qofkii sameeyo ilaahay adduunkan dhexdiisa waa ku ciqaabaa cadaab ayuu ku tusinaa haddii ilaahay cadaab oo ku tusinane maalintii aakhiro meel ugu fakahaya ma jiro subxaana caza wajalla waxaa la arkaa nin kale ay aroosayaan nin kale uu aroosaayo oo subxaana allah dadkan miyaanan ogeyn khisadii luud miyaanan maqlin khisadii luud miyaanan dhegaysanin ilaahay aayaddiisa subxaana caza wajalla yaa allah yaa allah yaa allah yacni subxaana allah ilaahay ha loo toobad keeno ee haddii insha allah khisooyinka oo anbiyada haddaad aad jeceshihiine commentig ayaad iigu soo qori doontaan insha allah khisooyin badan ayaan idin soo gudbin doonaa waa walaalkiina aslax abasaafi oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo filimkani waxaan ku turjunay stuudio saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baadaba ilaahay dartiis baan idin jeclahay ila alliqaa